Jacaylka maanta jira sida aan ka soo sheekeynay jacayladii hore ayaa haddana ay ku kala duwan yihiin jacaylka maanta balse waxa ay ka siman yihiin magaca weedha iyo sida loo dhigayo. Waxaad arkaysaa inuu qiimo beelay jacaylkii wiil ama gabadh aan waxba ka aqoon inay ku hadaaqayaan oo ay dhahayaan waa aan ku jeclahay muddo yar kadibna waxaad arkaysaa lamaanihii oo midba midka kale uu dhahayo waa necbahay dadka ada ayaan kuugu necbahay laygama kaa tusi karo waxaa tahay bahal iyo waxyaabo la mid ah. Waxaana sababtaasi ay jacaylku u bahdileen xushmad darida ay tahay dhalinta maanta, waxaana inta badan dhalintu ay ugu dhedheelaan jacaylka iyagoo kala garan la jacaylka saxda ah iyo waxa uu yahay. Kaaga sii darane laba ruux oo aan isarag oo aan ismaqal xitaa oo aan hayb wadaagin in ay dhahaan waa aan isjecel nahnay dadka waan isaga sokaynaa waxaan nahnay ul iyo diirkeed bal goormee la is arkay sawtii qofka la jeclaa uu ahaa jiray ruux sida qof caafimaadkiisa loo baari jiray oo kale wuxuu galo iyo wuxuu gudana la kala odhan jiray waa yaabse sida ay isku fahmaan dadka halow maahane aan iswajigaranayn misna jacaylkooda keliya hadal uu ku egyahay. Soomaaliduna waxay aad u fiirsataa filimaanta Hindiga iyo musalsalada Turkiga hadda ha ugu badnaadee iyagoo runta mooda waxa ay sheegayaan taasna waxay dhaxal siisay inay jilaan oo jaliin oo keliya uu ka noqdo jacaylka. Wiilka ama gabadha kuu doonan ha ahaado inuu dhaho waan ku jeclahay la'aanta ma noolaan karo noloshu waa mugdi caafimaadkaygu ma wacna iyo ereyo kale waxay inta badan dilaan micnaha dhabta ah ee jacaylka. Waxaana isdaldalaya sun baan cabaya haddaad igarab istaagin waa yaabsi qofka aad ka sheekaynayso soo horta ma noolaan haddase ma noolaan karo. Jacaylka maanta jira dhibta ugu weyn ee haysata lamaanuhu waxa uu yahay in qof walba uu samaysto oo ugu yaraan 30 qofood ilaa iyo 100 qofood ka badanna uu saaxiib la noqdo waxayna u horseeday in jacaylka halkaa uu ku idlaado waayo markasta uu saaxiibada ama ay siyaadaan saaxiibada waxaa badanaya dadka loogu yeerar fiyaaniinta waxayna kala geeyaan labada qofood ee iscalmaday haddana heshiiyey guri in ay yagyeelaanna ku heshiiyey. Dhanka kale isgaarsiintu waxa ay keentay khasaaro iyo faa'iido laba qofood oo aan is-aqoon inay isbartaan jacaylna ay wadaagaan hadhowna shalayto ay ka dambeyso qofkuna uu ordo maxaa i baray qofkaas maxaa ii keenay iyo erayo la mid ah. Waxa ay kala geysaa isgaarsiintu casriga ee maanta qoysas oo ay wadaagaan waxayna dhex dhigtaa buuq iyo dagaal joogto ah sidoo kaleetana waxa ay inta badan keentaa faa'iidooyin badan waxayna xoojisaa in lamaanayaashu isla jilaan jacaylka ay si toosa u wada xiriiraan hadalka layska deeqsiiyo si wacan loogu damshaado iyagoo kala jooga qaarado ama isla joogaba laakiin waxaa inta badan kala shakiga iyo waxa uu leeyahay xiriirka kale qofka uu tuhun u soo galo waxa aadna arkaysaa waxyaabo mashquul u keenaya iyo waxyaabo la mid ah. Jacaylka sidiisaba waa wax rabbaani ah waana laga maarmaan inaad haysato jacaylkaaga kugu wanaagsan ee nolosha ku soo mara waana kan yimaada marka la ismeersado oo lamaanayaashu ay isguursadaan kadibna lagu dhaqmo daacadnimo muxibo kalgacayl ay ku dheehan tahay. Jacayl la'aan waa nolol la'aan lamaanayaashuna waxaan kula dardaarmaynaa ee ku xiran aayaha nolosha TV in jacaylka ay ka run sheegaan.
Degar